أنا ما أظن هاي وقت يعني قاعد يصير شيء ورأيت يعني قاعد يصير مقعي واحد اللي أنا إسماعيل محمد نور كتب اللي أنا بدور الدولة في الشباب runtii marka hore waxaan rabaa inaan salaamo dhammaan shacabweynaha dowlad goboleedka hirshabelle waxaan rabaa in aan maanta laba wax yar ka iraahdo runtii waxaa soo dhacday message oo naloo soo diray haddaan nahay xubnaha ka tirsan dowlad goboleedka baarlamaanka hirshabelle messagekaas oo ku qornaa in baarlamaankii berrito isniin ah la rabo in la xiro ay ku qoran tahay baarlamaankii ayaa berrito la xirayaa mudanayaashu waa inay soo xaadiraan kaasoo hoosna ay ugu qoran tahay madaxweynaha koowaad ee dowlad goboleedka hirshabelle runtii horta waxa ayaan darro ah baarlamaan xiran in la xiro waa xirayaa la yidhaahdo runtii waa ayaan darro baarlamaankan waxaa la xiray uu guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle xiray 16 juun 2019 in la furay ahayd 17 juun qorsho 17 agost in la furay ahayd arrimo farsamo awgood ayaa waxaa dib loogu dhacay isbuuc iyo wax la mid ah sida lagu soo wargeliyay guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle waxa ayaan darro ah marka qofku inuusan sharciga akrinin dastuurka waxaa ku qoran xiritaanka guddoon waxaa go-aan ka gaaraya guddoomiyaha baarlamaanka isagoo markaa wargelinayo xildhibaanada ma aha inuu kooram leeyahay inuu message lagu xiraayo in warqad lagu xiraayo wax shuruud oo ku xiran male waxay hadda ku andacoonayaan guddoomiyaasha jooga jowhar waa waxyaabahaas runtii annagu waxaan ku dayanaynaa dowladda dhexe federaalka dowladda federaalka soomaaliya guddoomiyaheedii baarlamaanka isagoo jooga johannesburg koonfur africa ayuu warqad ku xiray baarlamaankii uu sheegay waktiga uu xirmaayo waktiga uu furmaayo khalaas waana xirmay cidood ka keentay ma jirin maxaa marka annaga guddoomiyaha oo gobolka hirshabelle loo leeyahay guddoomiye ka duwan ma xiri kartid adoo xamar jooga loo leeyahay waa arrintaas waa arrin aada loola yaabo labo waxaa aada in loola yaabo ah in xogeyaha iskale message dirida ma laha guddoomiye inuu message dira ma laha guddoomiyaha leeyahay shaqadiisa waa ka weyntay waana ka maqaam sarreeya inuu telefoon soo qaato message dad u dirjiro runtii waa ka maqaam sarreeya waa ka xumahay guddoomiyaha koowaad baarlamaanka inuu asaga isku soo qoro saddex hirshabelle baarlamaanka hirshabelle waxay la daaladhacaysaa maamul xumo waxay la daaladhacaysaa fakri waxay la daaladhacaysaa fatahaad waxay la daaladhacaysaa cudurro fara badan hirshabelle waxay la daaladhacaysaa amni darro waxaan rabaa inaan shacabka hirshabelle u sheego innagii waa shaqayn la'nahay waxaan ka shaqayn la'nahay marna maamulaan ka shaqayn la'nahay marna amniyan ka shaqayn la'nahay marna dhibaatooyin kaleeto waxaan rabaa marka shacbigu inay ogaadaan haddii meesha keliya ee aasaaska saxda ah waa baarlamaankii dowlad goboleedka hirshabelle haddii baarlamaankii saakii hal qof ama laba qof ama saddex qof oo maalinta isku soo xirtay go-aan qaadatay ay rabto inay fowdo ka dhex samayso shacbigii yaa u dan ah annaguse maxaan qaban karnaa haddii 2 bilood uu hadda xirnaa la yidhaahdo 2 kaleetan ku dul xiraynaa oo ninba maalinkiisa mashay jiro annagu marka xageen ku shaqaynaynaa qaabkeesa u shaqaynaynaa shacbiyow berrito haddaad fowdo aragtaan oo xildhibaanadii oo wada arrin aydan jeclaysan haddaad aragtaan xildhibaanadu qalad ma laha guddoonka iskale weliba ninka messageka hadda soo diraa iskale arrintaa aada ha loola socdo mudane waxaa jira in baarlamaanka hore uu xiraa sida aad afkaaga ka dhawaajisay gudoomiye ku-xigeenka koowaadna waxa uu afkiisa ka qiray in isaga iyo guddoonka ugu sarreeyo yani guddoomiyaha baarlamaanka aysan wax khilaaf uusan dhex taagneyn waa maxay wamalka waxa hadda aad ka sheekeynaysa buu soo diray maanta guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka wuxuu noo soo dhacay muddo hadda nusu saaca laga joogo dhammaan xildhibaanadii waa wargeliyey waa wada hadalnay cid inuu aan keligii iisoo dhacay waxaan hubinahay inuu soo wada dhacay waa usoo wada dhacay oo weliba la leeyahay berrito buu xirmayaa hadduu leeyahay isagu hadduu khilaaf hadduusan jirin guddoomiyihii baarlamaankana uu leeyahay waa xiran yahay annagoo xiritaana ognahay oo masaajidii hore haynaa goormaa la furay baarlamaanka goormaa la furay goormaa la xiraa meeshu xero uu qof leeyahay ma aha waa xero nidaam iyo dastuur dadku ku kala joogaan waaye ma aha anaa qalinka haysta anaa awooda no shacbiga reer hirshabellena waxa ma aqbalayaan xildhibaanaduna ma aqbalayaan cid kastoo damiirlena ma aqbalayso baarlamaanku waa inuu shaqeeyaa shaqadiisa gutaa xukuumadda la xisaabtamaa shacbiga wax u taraa
xildhibaane sidaad sheegtay xildhibaanka baarlamaanka waa isha keliya ee sharciyadeed haddii idinka aad isa haysataan goormaa shacbi wax uqabanaysaan aan ku saxay anagu isma haysane hal qof baa fidnada meesha ka dhex wada cidna isma haysato guddoomiyaha baarlamaanka hadda waa iska warhaynaa wuxuu nagu yiri baarlamaanka waa la furayaa isbuuc halaysu yiri isbuuc shalay in la furay ahayd hal isbuucaan ugu darnay isagaan ka warsugaynaa goorta la tegaayo fasaxa lagu kala maqan yahay beledweyne buloburte jalalaqsi cadale warsheekh xamar balcad ayaa lagu kala maqan yahay oo guddoomiyaha baarlamaanka isagaa laga rabaa inuu qoraal diro uu yidhaahdo maalin hablaha loo soo diyaargooyo furitaankii cidda imaaweyso sharciga qabanayo sharciga noo qoran cid ku xadgudbi kartaa ma jirto laakiin inuu qof isku soo xiro uu maalin cad isagoo soo jeeda riyoodo ama inta sida cajaladii wax lagu soo shubo ma aha inuu yidhaahdo anigu waxaan go-aansaday in baarlamaanka berita la xiro no xero geel ma aha xeradaada qof walba xeradiisa ha u tashto laakiin xeradaa hirshabelle ka dhexaysaa ma garan karno ma rabna hadda inaan cid kale ku xadgudubno laakiin fikirka aan qabaa waxay tahay fikir aadan saaki qabin maxaa galabta kugu dhaliyey ta kale siyaasadu ma aha hadda igu soo dhacday haddaan falaya ma aha siyaasadu waa la lafaguraa waa la jejebiyaa waxaan masiir umadeedoo milyan qof oo dad ka badan ka dhexeeya waaye maxay la noqon doontaa maxay dhibaato ohay keeni kartaa waa inaad isweydiso maaha inaad masajid iska soo qabato iska dirta ma aha please sharciga yaan waxaad gudin hirshabelle wax loo dhimin balashadii ugu horeysay ee ka socota guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka miyaa mise waa tii labaad ee hadda idiin soo dhacday masejo badan uu soo diray laakiin xiritaan markay noqoto waa markii labaad iyo markii saddexaad oo lagu diido layidhi war baarlamaanku waa xiran yahay waxaad waa xira aad leedahay maxay tahay waa furaa dheh walba dhinac kale udhig hadda waa la xiriiray xildhibaanada jowhar ku sugan xildhibaanada xamar ku sugan kuwa beledweyne ku sugan waa isku wada fikir waxay leeyihiin nin maalin riyooday annagu warkiisa ma qabanayna naga daaday kuleeyihin marka ayaanan shacabka been loo sheegin baarlamaankii waxaa la furayaa isbuuca soo socdo hadduu allah awoodda leh u cidmo shacabkana waa loo shaqayn doonaa shacabku hadda eedo badan inoo haystaan waxqabad la-aan iyo inaan annagu waxba soo kordhinin annagu meel hoosaan kasoo bilownay dadka laftigooda in dawladnimada la bara u baahan idan dadka maamulka ka mid ah marka shaqooyin badanaan haynaa waxay aan karaamkeena waa u qabanaynaa laakiin maalin walba inuu qof lugta na qabto annagu uma dulqaadan doono loomana dulqaadanayo qof walbana cod buu meesha ku joogaa codkiisa wuxuu ku jooga ha ilaashado sharafta ummaddana ha ilaaliyo guddoomiyaha baarlamaanka xiritaankiisa hadduu sax ahaa 17 iyo 16 inuu furmay ahayd sida aan ka warqabnay waa duruufo waa noo sheegay annagoo seminaar ku jirnaan weydiinay annagoo 40 iyo dhowr xildhibaan ah waxaan ku nidhi waa la joogaa waktigii seminaarkii waa dhammaaday goormaan baxaynaa oo message noo soo diraysaa arrimo farsamaa iga dhiman ha layga warsuuri dabcan ma sahlana dad kala maqan oo beledweynihii meel walba kala jiro in lasu soo ururiyo waxay noogu qaadanaysaa buu yidhi wiig kale bal anaa idinla soo doono laakiin 100% isbuuca soo socda waa la furayaa buu nagu yidhi maxaa usoo jeedinaysaa ugu dambeyn ummadda hirshabelle ee ku dhegeysanaysa ummadda hirshabelle waxaan usoo jeedinayaa inay gacmaha isqabsadaan inay isku duubnaadaan cid walba cid alla ciddii khalad gashana annagaa shaqo ka qabanayno innaga haddaan qalad galnana iyagaa naga qabanayo shacabka inay nala xisaabtada xaq bay uleeyihiin inay baarlamaanka yimaadaan oo yidhaahdaano oo codsi soo dirsadaano in ayaga la dhegeysto xaqay uleeyihiin inay annaguna dhegeystaana xaq bay uleeyihiin waxaan leeyahay marka cid alla ciddii sharciga ku cadgudubto waa in la qabto hirshabelle haddaadan wax u tari karin walaalo waxa u dhimin baan leenahay ama mas-uul noqo ama shacab noqo haddaadan hirshabelle maanta wax lagu taray u baahan tahay oo dhaqaalaheedii la kabo oo aqoonteedii kor loo qaado oo wax walba lagala shaqeeyo haddaadan wax u tari karin waxa u dhimin baan leenahay hirshabelle